إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cinwaanka ama mowduucan ka hadlayaa waxa weeyaan qatlu الnafsi bigayri اlxaq. qofkii bani aadamka ahaa oo gardarro lagu dilo iyo sharcigu wuxuu ka qabo. waa mowduuc ama arrin aada u xasaasiya, mar hadduu xaalku taagan yahayba qof bani aadamah oo innagoo kale ah iyo dhimashadiisa ama dilkiisa. ilaa 20 qodob ama 20 arrimood oo ku saabsan wixii la xidhiidha dilka ah oo u badan fiqigiisa iyo qaanuunka islaamiga ah ama shareecadu waxay ka tidhi ayaynu ku soo dhowaan doonaa insha allah. marka u horeeya, qofka bani aadamkaahi xuquuqdu leeyahay waxa u horeeya xaqulxayaa, xaqa nolosha, oo xaqa noloshu loo ilaalin maayo keliya qofka muslimka ah, laakiin xataa gaalkii aan dil mutaysanin waa loo ilaalinaya. sidaa daraaddeed ayaa wuxuu ka mid yahay xaqulxayaa waxyaabaha diintu ay u timid inay dadka u ilaalisee loo yaqaano daruuriyaadka ama baahiyaha shanta ah. waxa weeya xaqulxayaa ama xaqa noloshu waxyaabuu ilaahay ku karaameeyey qofka bani aadamka ah. walaqad karamnaa bani aadam. sidaa daraaddeed, iyadoo loo ilaalinayo qofka bani aadamka xaqa nolosha, ayaa islaamkeennu waxa uu mamnuucay waxa loo yaqaano ijhaadka ama abortionka oo ilmaha laga soo rido hooyada, oo uu qofku yidhaahdo ama waa garac iyo weceloo ma doonayo sida dadka qaarkood sameeyaan, ama uu yidhaahdo waa wala dusinaayo waa laygu ceebaynayaa. si kastaba sababtu ha ahaato, ama uu yidhaahdoba waa inan gabadh weeyo ma doonayo sida dadka qaarkood sameeyaan ummadahaan iimaanka lahayn. ilmaha la soo ridayo sharcigu wuu xaaraantinimeeyey. wuxuu xaaraantinimeeyey wixii loo yaqaanay alwa'd. wa ida almaw'uudatu su'ilat, waa ilmihii oo marna caloosha ku jira marna ifka u soo dhacay. ilmihii in la xabaalnololinayo la aasayey ee hablo u badnaayeen. islaamku nolosha qofka isagoo ilaalinaya wuxuu xaaraantinimeeyey alqatlu alcamd, dilka badrheerhka ah ee qofka bani aadamka loo geysanayo. wuxuu loo xaaraantinimeeyey shayga loo yaqaano alqatlu alraxiim, dilka uga raaxaynta ah. oo ummadahan iimaanka lahayna waxay odhanayaan odaygan iyo islaantan waxbaba u soo kordhi maayo, 100 sanuu marayaae irbad ku muda sunoo hore u sii wada, ama wuu silcayaa wuu darxumoodae uga raaxeeya. ma yaqaan islaamku, waa diido u xaaraantinimeeyey. xaqulxayaa iyadoo islaamku ilaalinayo xarama alintixaar, isdilka ayuu xaaraantinimeeyey. ilaa qofku naftiisa ma leh waa ammaanaya. tacriifka dilka markaynu soo noqonno, dilku waa qaybo: khata, camdi, shibhulcamdi. dil kasa iyo mid kamaa iyo mid labadaa u dhaxeeya. kaynu iminka ka hadlaynaa waxa weeye ka kaska ah ama ogaan wax loo dilo. waxa weeye qofkii bani aadamka ahaa oo loola qastiyo atacamudu bilficli almushiq. qofkiibaa ayuu wuxuu ula qastiyayaa shay had iyo jeer dila. rasaas buu qaatay, qof bani aadamana wuu la eegtay oo dilkiisu xaaraan yahay. marka qasadkiina wuu jiraa, isaguu la doonayaa. waxaanuu ku isticmaalayaana waa wax had iyo jeer dila. dilka noocaasee labadaa qayd leh ayaa la yidhaahdaa camdi. hadduu labadaa israacin waayana dilalka kale aynu soo sheegnay buu baxayaa. xukumkiisa oo qodobka 3aad shareecadu maxay ka qabtaa halkayse ka taagantay dilka isaga ah
ee aan sharcigu ogolayn dilka sharcigu ogolaya waynu arki doonaa shareecadu way xaaraantinimaysay waxaanay ka taagan tahay inuu yahay min akbar alkabaa'ir dembiyada u waaweyn weeye qofka bani aadamka ah oo gardarro lagu dilo waliba qofka muslimka ah waa min akbar alkabaa'ir gaalnimada dembiga ku xiga weeye qofka muslimka in xaqdarro lagu dilo ilaahay baa wuxuu ammaanayaa oo uu tilmaamayaa dadka alla yaqaanka iyo dhaqankooda والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق dadka alla yaqaanka ee cibaadu raxmaan waxa weeye dadka ilaahay kaliya caabuda qof mu'minana gardarro aan ku dilin ama naf bani aadama aan gardarro ku dilin marka waxaad arkaysaa dilkii gardarrada ahaa ilaahay wuxuu ku xigsiiyey gaalnimada darajadaasuu dembiga kaga jiraa siduu nebiguba ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam axaadiidtiisa saxiixa ah waxaa ka mida way badan yihiin kuwa aynu soo qaadanayno xadiidkii bukhaari wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam akbaru alkabaa'ir ashirku billaahi wa qatlu nnafs dembiyada u waaweyn waxaa kow ka ah ilaahay oo wax kale lala caabudo waa gaalnimadii iyo qof bani aadam ah oo gardarro lagu dilo halkaasuu ka sii waday nebigu mar kale wuxuu ihi ijtanibu sabca almuubiqaat qiila yaa rasuula allahi wamaa hii toddobada dembi ee dadka halaaga iska ilaaliya maxay yihiin baa nebiga la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam wuu tiriyey dhagaha aynuu furno si aynu uga fogaano aynu uga feejignaano waa gaalnimadii waa sixirkii waa qofkii oo gardarro lagu dilo waa ribadii oo la cuno xoolihii agoonta oo la cuno iyo qofka maalinka aan idhaahdo dagaalku uu jira cadowga lala dagaalamayuu qofku noqdo fulay firdhanaya iyo hablaha asturan ee ceebtala oo la caayo oo sina lagu sheego toddobadaa dembi weeyaan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam dembiyada waaweyn ee dadka halaaga waxaa sii caddaynaya jariimadan ama dembigan dilku dhibaatooyinku leeyahay xadiid kaloo bukhaari iyo muslim ku sugan oo nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi ddimaa balafka ama faylka u horeeya la furaya maalinta qiyaamaha markuu ilaahay addoomihiisa xisaabinayo waxa u horeeya dhiiggaa u horeeya waa xuquuqda addoommaha dhexdooda ah xuquuqdu ilaahay leeyahayna waxa u horeeya siduu xadiid kale caddaynaya salaada xisaabta ilaahay markuu bilaabaya maxkamadda iyo miisaanka la hor joogo waxaa la leeyahay horta dadkii dadka gardarada ku dilay ha la furo faylkooda iyo kiisaskooda ha la bilaabo waxaa kala gaadhayana nusuusta dambe aynu ku arki insha allah taasina markaa wuxuuna inoo tilmaamaysaa jariimadaa weynaanteeda qodobka afraad islaamku wuxuu ogol yahay qofka bani aadamka in la dili karo 7 xaaladood midda u horeysa waxa weeyaan biridda markuu noqdo qof liito oo xun oo aayala oo ilaahay iyo diintiisaba uu salugu gaaloobo intii uu muslim ahaa kadib ayuu diinta ka baxay siduu doonayaba ha kaga baxa qalbi iyo qowl iyo ficil intaba waa lagaga baxaa nabiga cadeeyay sallallahu alayhi wasallam xadiidkii bukhaari ku sugnaa wuxuu yiri man badala diinahu faqtuluhu qofku hadduu diintiisii islaamka bedelo ka baxo dila maxkamadda la saaraya hadduu soo islaami waayo waslada liidata muslimka laga dhex saaraya waxa labaad oo dilka mashruuca ah ee islaamku ogol yahay uu noqday qofkii xaas hore soo maray ee guur hore xalaal soo maray kadibna sina ku dhacay rag iyo dumar mid kasta aado waa kii rajmiga lagu sameeyay dhagaxa lagu dilay والثيب بالثيب جلد 100 والرجم صحيح مسلم باورين حديثك قفكم مر هدو حاصر سو مرب النبي عليه الصلاه والسلام ودنبغاسي uu ku cadaada ama uu qirto 10 ulood baa waxa lagu dhufanayaa boqolkii jeedal dhagaxna waa lagu dilayaa waxa saddexaad qisaastii hadduu qofku si bareera cid u dilo cidii ehelka ka dhintayna ay ka saamixi waayaan ama ma ka qaadan waayaan qisaas doonaan wala qisaasi yaa ayuha alladina aamanu kutiba calaykum alqisaas ilaahay baa u yeedhay dadka alla yaqaanka ah wuxuu waxa la idinku waajibiyay ilaahay baa inagu waajibiyay qofku siduu dadka u dilay
in loo dilo oo damqashadii uu dadka ku sameeyey isaguna u arko. waxa afraad oo qofka loo dili karaa sharcigu ogol yahay markuu qaadicu dariiq noqdo. burcad buu noqday dhul jiif ah ama jidgoyna oo dadka u fadhiya shaarica oo amnigii khalkhaliyo ummaddu ka nasan laadahay oo waddanku isu bixi la'yahay. suuratulmaa'ida ilaahay uu ku sheegay ciqaabtiisa: innamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu ilaa aakhiri ilaaya. dadka dalkiiyo dadkaba kharribay ee laga fadhiisan la'yahay abaalmarintoodu buu ilahay yidhi alla uu oggolaaday waa in la laayo, sidaa aayaddu ay sheegtay. waxa shanaad oo qofka lagu dili karaa inuu noqdo jaasuus ama qof basaasa oo cadowga warkeenna iyo sirteenna gaadhsiinaya. haddii madaxda muslimiinta u sarreeya ay u arkaan arrintaa inuu munaasib yahay oo ay ku habboonto in la dilo, xaalkiisana waa la miisaamayaa. waxa u daliila asxaabigii xaatib markuu reer maka u basaasay ee la soo qabtay nebiga hortiisa la keenay sala allahu calayhi wasalam. cumar baa hadlay oo waxau idhi: yaa rasuula allahi, dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq. nebi allow idaah, ninkan munaafiqa ah aan qoorta ka jaro. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi: iska daah, waa reer beder. reer beder buu ku baxsaday. bal xaadib oon maalintaa reer beder ahayn maxaa ku dhici lahaa? dee cumar baa lagu fasixi lahaa ama ciqaab baa la marin lahaa. marka jaasuuska xaaladaha qaarkood baa la dili karaa xaalkiisu markuu sii adag yaho madaxda muslimiinta u taallaa. waxa lixaad oo qofka lagu dili karaa oo dilka mashruuca ah lidafci saa'il, qofkii ummadda soo weeraray horarka ah, horar baa la yidhaha af soomaaliga, ee nafta iyo maalka iyo cirdiga qofka ku soo weeraray sabab la'aan. jumhuurulculamaa waxay isla waafaqsan yihiin in la iska difaaca inay waajib tahay. ilaahay baa wuxuu uhi: faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum. qofka idinku xadgudba idinkuna waxay ugu jawaabtaan wuxuu idiin geystay oo kale. faqaatiluu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illaah. dadka idinla dagaalamaya ee xumaanta idinku haya gardarrada ku socda la dagaalama buu ilaahay. saxiixu muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra: nin baa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam, su-aal muhiima buu weydiiyey. wuxuu idhi: waxaad iga warantaa hadduu nin yimaado doonaya xoolahayga inuu qaato. markaasuu nebigu uhi: dee ha siini. hadduu ila dagaalamo ka warran buuri. dee la dagaalan buuri. oo hadduu kawba igaga siiyo ka warran buuri. dee shahiid baa tahay. haddaan anigu kaw kaga siiyo ka warran buuri. dee naartu ku jiraa buuri. dee warkiiba u dhammeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa toddobaad oo loo dili karaa qofka muslimka ah sixirka. sixirkuna wuu badan yahay baryahan dambe. marka fitnadu ay badato, dadka qaarkood baa sixirlayaasha iyo khuraafaadlayaasha awliye u qaata. markaasay ku tallaashaan filada, markaasay ku qarxaan marka dambe iyagiiyo ciddii ay u adeegsadeenba. aad buu u badan yahay sixirku. bulshadeenna wax badan waxa iska hor keenay jaarka, ehelka, qaraabada, rag iyo dumarka isqaba waa sixirka. sidaa daraaddeed ciqaabta qofka sixirlaha ah ee sixirka caadaysta ka tanaasuli waayey waa dil isagana, waayo diintiibuu ka baxay sixirkaa uu sameeyey daraaddeed. sidaa daraaddeed ayaa cumar ibnu khadaab waxa uu layn jiray ama amrayba in la dilo sixirlayaasha. cuhmaan ibnu cafaanna sidaasoo kaleu ahaa. cabdilaahi ibnu cumarna sidaasoo kale. xafsa oo xaaskii nebiga ahayna addoonay lahayd oo balaayadaa ku ibtilaysnayd iyana khaarajiya bay tahy. marka qof toddobadaa arrimood ayaa islaamku ogolaya in loo dili karo qofka muslimka ah, wixii aan toddobada ahayna maya. waxaynu usoo gudbi lahayn shaygan la yidhaahdo dilka. wuxuu la bilaabmay noloshii bani aadamka. markuu ilaahay abuuray bani aadamka iyagoo weli bilowaba fitnadani way bilaabantay. waxaad ka akhriyi karaysaa suuratulmaa'ida aayadda 7 ee ka warramaysa, halkaasaa tafsiirkeeda ku dhegaysane, siduu u dilay ninkii qaabiil la odhan jiray haabiil, iyo shaydaanku siduu ugu qurxiyey. fadawacat lahu nafsuhu qatla akhiihi faqatalah faasbaxa min alkhaasiriin. naftiisa iyo shaydaan baa u qurxiyey inuu walaalkii dilo, garabkiiyo gaashaanka u ahaa. sidaasuu kadibna ku khasaaray
qof kastoo walaalkii dilaana waa khasaaroobay. nebigu wuxuu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam xadiid muslim ku sugan min xadiid ibni mascuud, qof kastoo muslima buuli oo gardarro lagu dilo qaabiilkaa u horreeyey qayb buu ku leeyahay dembiga ah, liannahu awalu man sanna alqatl, wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee dilka jideeyey. marka waxaad iska ilaalisaa dembi iyo ceeb iyo xumaan iyo jariimad inaad dadka u horseedo si aanad qusumkii qaabiil adiguna u qaadanin. wuxuu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sidaa dilku beriga horeba u soo bilaabmay inuu sii socon doono, weliba aakhiru zamaankana uu sii badan doono, oo dadka muslimiintaa fitnada dhexdooda ah iyo muslimku isdilka uu isdilayo inay sii badan doonto. markaasaa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, xadiidka muslim uu warinaya min xadiidi abi hurayra, laa taquumu saaca xataa yakura alharaj, qiyaamadu dhici mayso jeeroo harajku uu bato. harajku asxaabtu way weydiiyeeno waxay dhaha harajkaasi muxuu ahaa? markaa wuxuu nebigu uhi waa dilka buuhi, waa alqatlu waa dilka dil oo dhanna maaha, waa kaa gardarrada ah. islaamku aad iyo aad buu uga digay dilka badrheerhka ah ee qofka bani aadamkaa la dilayo, aad buu uga digay. waxaynu soo qaadan doonaa daliiladan intii hore inagoo ku kordhinayna, si bal nafteennu ay u dareento mushkiladdan intay laagtay oo aanu kuula sahlanaanin qofka muslimka ah shahaadanaya dhiiggiisu. fii suurati الnisaa ilaahay baa u goodiyey ama hanjabaad weyn u fidiyey qofka qof muslima gardarro ku dila. waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanah wacadda lahu cadaaban cadiima. shantaa arrimood buu ilaahay isu raaciyey. qofka dila qof muslima gardarro u dila wuxuu leeyahay cadho alleh, wuxuu leeyahay nacdal, wuxuu leeyahay cadaab, wuu ku waarayaa, cadaabkuna wuu weyn yahay. waxaad halkaa ka arkaysaa waxa laga jidhiidhacoodo inuu yahay dembigaa iyo jariimaddaas. ilaahay baa wuxuu tilmaamay qur-aanka dhexdiisa qisadaa qaabiil iyo haabiil. xagga dambe waxa ilaahay uu ku sheegay dilkaa daraaddii gardarrada ah. ilaahay wuxuu hore u qoray, kutubtii hore uu ku qoray, reer banu israa'iilna u caddeeyey, innagana laynoo sheegay qofku hadduu qof dilo wuxuu ka dhigay inuu dadkii oo dhan wada laayo kale. min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiica. wuxuu ka dhigay inuu dadkii oo dhan wada laayey. bani aadamku isku xurmo keliyuu leeyahy. markuu qofku cid kale soo diloon reerkiinnaba ahayn ama cid aa ishaysaan ah, adiguna waad ku xigtaaye ogow, waayo xurmadii wuu jabiyey, gidaar baa kaga gudbanaa. gidaarkii kol hadduu dumiyey, kuwa gidaarkiisa la dumiyun baad adiguna ku jirtaa inuu ku dili karo ogow. sunnada nebiga markaynu soo noqonno sala allahu calayhi wasalam, wuxuu nebigu caddeeyey, waa xadiid bukhaari ku sugan, laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diini maa lam yusib daman xaraaman. u fiirso xadiidka. qofka muslimka ahi wuxuu ku sugan yahay xagga diintiisa iyo noloshiisa waasac buu ku sugan yahay. waa qof si caadiya buu isaga soconaya haddaanu dhiig xaaraana gelin buu nebigu, haddaanu dhiig xaaraana gelin. soomaalidu waa kuwa yidhaahda hula'aan iyo hoy la'aan iyo hanti la'aan ayaa la seexdaa la safraa. qofka aan godob lahaynaan dhiig muslim qabin meeshuu seexdaba hoy la'aan buu seexanaya, hanti la'aan buu iska soconaya, dadkao dhan baa sahayda siinaya. hula'aan ama dhar la'aan buu iska socon karaa, cid buu ka heli karaya tobalcaro. laakiin hadduu dhagarqabe yahay dhulkao dhan baa u dhaqdhaqaaqaya. dhagarqabaa dhulkaa u dhaqdhaqaaqa baynu soomaalidu idhaahda. marka haddaad doonayso inaad si raaxa leh oo nafisa oo waasacnimo iskaga noolaato, dadka ilaahay nabadgeliyo dhiigga xaaraanta iyo godobta ka fogow. nin siyaasiyiinteenna ka mid ah ayaan maalmaha ka mida ku idhi, waar hebelow dee siyaasaddii xayraan badan baad kala kulantay. isagoo dee goolaaftanuun ku jiro oo kolba tv ka hadlaya oo warbahashii waabay ku wareerisay. laakiin kelmad hoosta ka xariiqa wuxuu idhi, wax kasta ha jiraane
weligay qof muslim mana dilin dilkiisana ma amrin buu qof muslina anigu weligay maan dilin dilana maan odhanin buu madax kastiyo military baa buu ahaaba sidaa daraaddeed waxaan halkaa ka gartay ninkaas inuu aad u baraarugsan yahay mushkiladda dilku uu leeyahay weliba qofka muslimkaa dilkiisa uu aad u fahamsan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamayaa qarada uu leeyahay qofka muslimkaa dilkiisu iyo xataa magtan yar iyo xoolahan la bixinayaa inaanu dhiiggiisa u dhigmin oo yahay un sabirsiin ehelka la sabirsiinayo markaasaa nebigu waxau uhi lazawaalu dunya ahwanu cala allah min qatli muslimin bigayri xaq adduunyadan oo dhan oo meesha ka baxda way ka sahlan tahay qof muslim oo gardarro lagu dilo gebiga adduunkan in la rogo ayaa iyadoo dee aan dadka lala rogayo dad muslimiin ee ku jirin ka soo qaada amaba hal ilaahayba rogaba taasaa ka sahlan qof muslima in gardarro lagu dila buu nebigu calayhi salaatu wasalaam hadday adiga kula fududahay waxaa ka sii daran adduunka aan dhaafno oo ilaa aakhira aynu u soconno wuxuu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam waa xadiid saxiixa oo nasaa'i ku sugan min xadiid ibni mascuud maalinta qiyaamaha ee ilaahay la hor taagan yahay u fiirsa halkan lagu waari maayo waa lagama maarmaan inaynu ka safarnaa haddaa marka ilaahay la ishortaaga buu nebigu ayaa waxaa imanaya qofkii maqtuulka ahaa ee la dilay ee gardarro lagu dilay wuxuu ku dhegayaa oo uu qabsanayaa qofkii gardarro ku dilay riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu gacanta ku dhegayo riwaayooyinka qaarkoodna waxay xusayaan inuu madaxa ku dhegayo halkaa fooda hadduu bidaar lahaana timaa loo yeelaya timo la qabsado ayaa loo yeelayaa madaxaasuu ku soo dhegayaa wuu jiidayaa ilaahay carshigiisuu la agtegayaa wuxuu leeyahay ilaahay ow kanaa i dilo adduunkii gardarre igu dile bal wuxuu igu dilay weydii ilaahayna wuxuu leeyahay maxaad ku dishay waxaan ku dilay buu leeyahay litakuuna alcizatu lifulaan si gobonnimada iyo madaxtinimada iyo haybadda iyo sharafta hebel u helo waa hebeluu kursiga ku riixayey oo u kaambeengaraynayey oo dadka daraaddii u laynayay markaasaa ilaahayna wuu jawaabayaayo waxa uu leeyahay laysat alcizatu lifulaan fabu bithmi hebelkaad sheegaysaa cisi iyo sharaftoona ma laha dembigiisa dusha u rido halkaasaa naarta lagu wareejinaya bilaa calaykum soomaalidu intay timaha isqabsan doonaan talow intay timaha isqabsan doonaanoo ay isjiidan doonaan allah inaga nabadgelyo inaga saamaxo wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam fitnada dadka muslimkaa isagoo inooga digaya aakhiru zamaanka والذي نفسي بيده لياتين على الناس زمان لا يقتل قاتل بما قتل ولا المقتول بما قتل حديثكم مسلم بوكسوغي من حديث أبي هريرة وحا إيمان دون أبو وقت أوقفك وحدلينا آنو قرانين بوحو عدكو دلي كلا دلينا آنو قرانين وحلقو دلي واتاين تاينو دايسكو وضا يعني مدح الله يسكوستو قول الله أورانا أيو برقي يعني عودكي يدقالكي السوكية dee wixii ina dhex maray marka dambe dadku ay soo biirsadaan waa fitankay ka mid uguma cudur daarin rasuulku sala allahu calayhi wasalam labada qof ee muslimiintii hadday islaayaan oo dagaalka fitnada la yidhaahda uu dhex maro dagaalka midna waa jihaad oo waa ka gaaliya muslimku dagaalamayo midna waa xarbulfitna baa la yidhaha waa ka muslimku waxay doonaan baa isku laayaan ay islaynayaan kii la dilay looma cudur daarin رسولك الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار markay hubkooda ku kulmaan isu soo cabaystaan labada muslimiinti kala dilay iyo ka wax dilay labaduba naartay galayaan waligaaba isqanci oo waxa tiraahdaa anigu waxaan u socday hadii la weydiiyayna nabiga oo la yiri kan waxba u dilay kan la dilay muxuu ahaa haysaguba ka kalu waa lagala horeeyay uune dee dilka isba uu socday darbada lagala horeeyay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay rasuulku isagoo ummadda u digaya xajjatul wadaa maalintii ummadda uu sagootinayay waxyaabuhu aad uga dardaarmuu isdul taagay buu kamid ahaa dilka gardarrada ah ee qofka muslimka loo geysanayo laa tarjicuu bacdii kuffaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd war intaan idinka tegeen adduunka ka tegay gaalaha noqonina idinkoo qoorta iska jaraya oo dhiiggeena xalaashanaya
in lagu gaaloobi karo dilka qofka muslimka hadduu qofku xalaashado ayuu nebigu inoo caddaynaya sala allahu calayhi wasalam. waxaa ka sii daran xadiid kale oo isaguna abi daawud ku sugan oo saxiixa, nebigu waxa uhi kullu dembin casa allahu an yakfirahu ilaa man maata mushrikan aw mu'minun qatala mu'minan mutacamida. dembi walba waxa laga yaabaa inuu ilaahay dhaafo laba mooyaane: qofka gaalnimo adduunkan kaga tegay isagoon toobad keenin, iyo qofka qof mu'mina ogaan u dilay. labadaa kama dhaafaya baa ilaahay wuli. marka gaalnimadii baaba la raaciyey xagga rajo la'aanta qofkii qof muslima dilay. waxaynu u soo gudbi lahayn haddaba 8 arrimood oo islaamku uu dadka kaga firdhinayo, kaga fogaynayo dilka gardarrada ah weliba qofka muslimka ah. waxa kow ka ah wuxuu nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qofka mu'minkaa dhiiggiisu inuu xurmo leeyahay. dadka mu'miniinta waxay leeyihin xurmay leeyihin, karaamo, xuquuq. xurmada qofka mu'minkaa buu nebigu inoo sheegaya. haddaynu inagu isxalaashanno aynu isxaqirnay, bal hadda halkuu sharcigu ina dhiga eg. cabdillaahi ibnu cumar allaha ka raalli noqdo, waa xadiid saxiixoo ibnu maajah ku sugan, wuxuu ihi nebiga ayaan arkay maalin maalmaha ka mid ah isagoo kacbada saa u dawaafaya. wuxuu leeyahay ma adyaba riixak, udgoonkaagu badan ah, xurmadaadu badan ah. wuxuu nebigu sii raaciyey intuu dhaartay, waladii nafsii biyadih laxurmatu lmu'mini acdamu cinda allaahi xurmatan mink maaluhu wa damuh. intuu dhaartay baa wuxuu ihi qofka mu'minka ah xurmadiisa iyo dhiiggiisa iyo xoolihiisaa kaa mudan adiga kacbada haddaad tahy. way yaabayaan dadku haddii la idhaa ciidan baa soo socdo kacbadii baa la duminayaa, dadkao dhan way wada kacayaan. qofka muslimkaa dilkiisiina digaagad la dilayaabuu ka liitaa. halkaasuu rasuulku dhigay sala allahu calayh wasalam. xurumaadkiiyo muqadasaadkiiyo lama taabtaanka ayuu ku daray. haddaynu muqadasaad leenahay, muqadasaadkeennii buu ku jiraa iyo waxyaabaha lama taabtaanka ah dhiigga qofka muslimka ah ee xaraamta ah. siyaabuhu uga digay islaamku ayay ka mid ahayd inuu nebigu maalintaa dardaarankiisa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum wa abshaarakum, waa basharka, waa jidhka, naftiinna iyo maalkiinna iyo dhiiggiinna iyo jidhkiinna xaraamun calaykum, inaad ku xadgudubtaan waa xaraam. sida maalinkan iyo bishan iyo sanadkan, sida intan muqadasaadkan aynu hayno, waa bishii dilxija, waa maalintii ciidda ama carafa, iyo iyadoo la taagan yahay xaramkii ilaahay. intaasi see xurmo u leeyiin ayaa dhiiggaasina uu xurmo u leeyahy buu nebigu leeyahy. waa dardaarankii ugu dambeeyey ee ummaddan uuga tegey ee ugu soo gudbiyey distoorkii ummadda. 80 habeen kadibna waa dhintay nebigu sala allahu calayhi wasalam. waxyaabuhu inoogaga firdhiyey ee dilka laynaga fogeeyo waxaa ka mid ah waxa la diiday in lagu farxo. ama qabiilada ay sayseen ha ahaado, ama midaa siyaasadda isku haysaan, ama mid colaad hoosoo shaksi idinka dhaxayso. qof muslima haddii la dilo, inaad dilkiisa ku farxdaabaa dembiya. adigu yaana dilinba, laakiin inaad tidhaahdo baga lugtaana lug hadhaydhe kaanaha laga nasto waabuna wareeriye, inaad tidhaahdood ku faraxdo musiibo weyn weeye, iyada laftigeedaa dembi kale ah. wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam man qatala mu'mina faاqtabada biqatlihi lam yaqbal illaahu minhu sarfan walaa cadlan. qofka qof muslima dila kuna farxa, eeg hadduu ka xun yahay waa gaar, kuna farxa, ilaahay sunno iyo faraltoona kama aqbalo. marka haddaanad waxba dilin laakiin dilka aad ku faraxsan tahay, sunnihii iyo faralkiiba inaan laga aqbalayn ayaa halkaa aad ka aragta. haddii yuhuudda ay layso dadka muslimiinta falastiin oo tidhaahdo waar waa iska fadhfadhleeyine gawdaha laga saaro, ama laba qabiilaa dagaalamay baa lagu, anigu tiimkaasaan la jiraa bagaa kuwaa la laayay. haddii aad kuwiirsiga noocaasa la timaado, sunno iyo faraltoona laga aqbali maayo buu nebigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam. waa siyaabaha laynooga firdhinayo laynooga fogaynayo. si dadka looga fogeeyo dilkaa xaaraanta ah, rasuulku waxa uu mamnuucay wax hub ah in qof lagu fiiqo, mindi ama bir ama waran, rasaasna hadalkeedaba daa, oo qofka laga nixiyo. xaaraan buu ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxa uu leeyahy laa yushir axadukum ilaa akhiihi bisilaaxi fainahu laa yadri lacala shaydaana yanzicu fiih. qofku walaalkiiyuu bir ku fiiqi, waxaa laga yaabaa inuu shaydaanku gacantiisa ka saaro, kadibna uu sidaa ku naar galo qofkani. mar hadduu hubkii ku dayey oo uu gacantiisa ka fakaday oo sidaa uu ku dhintay, naar buu ku gelayaa buu nebigu.
ila qasad buu la yimide Soomaaliduna oo ku yiraahdo biri way boodaa birta dadka laguma tijaabiyo way ka boodaa si dib yar bay ugu dhacaysaa bay leeyihiin qorigii buu cabeeyay ama uu koo gareeyay qof buu ku ciyaaraya ku cabsi gelinaya imisay ku fakatay riwaayad kale waxay tilmaamaysaa inay malaa'igtu nacdalayso ilaa uu iska daayo qofkaasi walaalkiisa uu cabsi gelinayo hubka ku cabsi gelinayo ku ciyaarayo walow haba ahaada kii hooyadii iyo aabihii ay dhaleen walaalkii ahaa si islaamku dadka dilka uga firdhiyo harrama iwaa alqaatil qofka wax dila in la soo dhaweeyo waa la diiday qofka dhagar qabaha la yiraahdo hadduu ku yimaado waajibka kaliya ku furani waxa weeye inaad tiraahdo ina mari stationka ku geynaya ina mari dadkii ku doondoonayay ayaan ku dhiibaya haddaanad qaban karayninna tilmaano waxaad tiraahdaa war halkan uu maray halkan uu galay waajibka iska rid nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam isagoo taa ka waramaya la'ana allahu man aawa muhdithan allah nacdalo dhagar qabe iyo qof balaayo wata qofka soo dhaweeya allah nacdalo wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan unsur akhaka zaliman aw madluman walaalkaagi wax dulmiyay u hiiliyo gacanta soo qaboode soo dhiib hatta diibi weydo waxa laga yaabaa in adiga ba ilaahay kugu salido waynu aragnay qiso yar baan idin sheegaya nin magaaladan dadka degan kamida oo jabhadii yara xayraanka ahayda ayaa nin ehelkiisina waa buu soo eegayaa oo fadhiyaa magacyadu bayna sheegayna tusaale ma soo qaadanayna ayaa magaaladan uu wax ku dilay darihii dadku hubka iska wada siteen maamulkuna aanu adkayn wuu firdhaday oo meel aan ku qiyaasay 80 kilomitir inay magaalada u jirto ayuu u tagay rag ay qaraabo yihiin iyaguna waxa markuu warkii uu sheegay iyaguna way bal iska joog bayna halka lama soo dhiibina waa la iska soo dhaweeyo halkana la fariisiyay dabcan de in la ximaayeeyo la ilaalinayo baa waqti wallahu a'lam laakiin de sida ka muuqata waa sida ninkii isagoo halkii jooga qorigiisina sita la waa dhagar qabo dhulka u dhaqdhaqaaqayeen ayaa reerkii waxa uu soo hoyday maalin dambe qolo xididkoodii oo yarad ka doonaya yaradka soo ma taqaan yarad bay doonaya waa sodogii iyo seedigi ayaa yimid waa la sooriyeeyo ardaaga la seexiyay kii dhagar qabaana meeshuu la hurdaa dad kalena meeshay hurdaan saqdii dhexe ayuu salalay markaasaa shaydaanku wuxuu u sawiray in la baadi doonayo oo rag qoriyo sitaa baadi doonaya intuu soo booday oo qorigii cabaystay ayaa kuwii meesha la hurday buu baas ku furay rasaastii waxay cuskatay ninkii sodog ahaa iyo ninkii seediga ahaa reerka yaradka u soo doontay sodogii iyo seedigii mid kaw bay ka tiri kaw u dhintay kii kalena dhaawac buu noqday culus yaradkiina halkaasaa lagu ilaawayna kala guraba ka dhacday waxa la yidhi abeesa ninka qaata isagay qaniintaa abeesa haddaad soo qaadato ood kilinkilada gashato inaad ku qaniintuun ka eeg marka waxay leenahay had iyo jeer dadka wax dulmiye soo dhaweeya tusaale u tahay man aana zaaliman sullita calayhi aw sallata allahu calayhi qof dulmi sameeye ka soo dhaweystay ehelnimo saaxiibtinimo yidhaahda gobonnimada inoo ilaaliya qofkan dhiibi mayne sharaftarha inagu dhacaysa waa luqadeeniye sharaftaradu dhinac kale kaaga dhacaysa ilaahay isagu kugu salidi doonaa markaasaad farta dhexda ka qaniin marka iwaa'ul qaatil qofka wax dilay in la soo dhaweeyo halkaas shariicadu ka taagantay si uu dadka diinteenu ay uga erido dilkan xaaraanta ah ayaa sharcigeenu waxa uu amar ku bixiyay qofka kaliya hadday 30 qof wada dilaan oo ay ku soo heshiiyaan 30 kaba tiirka lagu tiirinaya 30 koodaba waa la wada dilayaa way dhacday waqtigii Umar ibn Khattab ayaa 7 nin oo reer Sanca ah reer Yamaneed ayaa nin kaliya wada dileen 7doodiiba wuu dilay markaas la yaabay soo maxay ila yaabaysa dadkan Sanca ku nool oo dhami hadday qof kaliya ku heshiiyaan dilkiisa wallahi na wada layn lahaa waa mas'alatu tamaal waa loo yaqaan fiqiga mas'alada dadku hadday dil ku soo heshiiyaan ma hadday kala socdaan oo midaba meesha gaar u socdo mar haddii mu'aamarada iyo heshiis ay tahay waa ku qusay noqonaysa
waxa laga cararayaa haddii aan sidaa la yeelin dee 5-6 qof intay isku soo kaxaystaan ayaa la odhan lahaa arrintan oo dhan kama wada maaranee ragga inoo kala reebo hadilina baa la odhan lahaa laakiin ku quuso weeye si islaamku uu uga eriyo dilkan oo dadka looga firdhiyo ayaa waxa la qisaasayaa qofkii sakhraanka ahaa u fiirso qofkii sakhraanka ahaa ee ogaan u soo cabay iyo u kas hadduu qof si camdiya u dilo ninku uu waalaayo caqligiisa wuxuu dhinaa la odhan maaye waa la leefsiinaya waxaa laga soo qaadayaa qof miyir qabo kale laakiin haddii loo qariyo waxaanu cabay oo cid ku ciyaaraysa ay u qariso sidaa uu ku sakhraamay waa loo cudurdaarayo khata buu noqonayaa dilkaas ilaa haddii kale qaar badan baa afka inoo soo qarmuunaysan lahaa soo maaha intay ku soo dhuftaan bay isyeelyeeli lahaayeen waxay odhanaya marka igaga dhacday waan sakhraansanaa iska sii daaya ma soconayso waa siyaabaha dilka looga firdhinaya dadka si dilkan xaaraantaa dadka looga firdhiyo manaca alislaamu alqaatila min almiiraaf qofkii wax dilay waxa la yidhi dhaxalka waxba kuma lahaa xadiidka saxiixa bay ku sugantay alqaatilu laa yarif qofku hadduu qof ehelkiisaa dilo aabbihii hooyadii walaalkii ma dhaxlayo dhaxalkiisa halkaasuu kaga dhintay imisaynu aragnay ehelkoodii dilayoo iyaga oo keligood dhaxlaya waalidkiisii dilay ama ehelkiisii dilay oo dhaxalkii ka qaday albaabkaana waa la iska xidhay ilaa haddii kale sidii qisadii aynu xusi doonno qisadii reer banu israa'iil qisatulbaqara ninkii adeerkii dilay dad badan baa iimaan la'aantooda u soo dhuuman lahaa mid ehelkiisoo xoolo badan haysta oo kaga kawsi lahaa si ay u dhaxlaan islaamku si uu dilka uga hortago loo adkeeyo waxa la diiday qofku inuu isdilo naftaada adigu ma lihi waa ammaano naftaada iyo nafaha kale waa isku mid sida dilka dadka kale kaaga xaaraan yahay taaduna dilkeedu waa kaaga xaraam walaa taqtulu nafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaq ayay soo galaysa ilaahay baa wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay wuu idiin naxariisanayaa naftiina hadilina walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nabigu wuxuu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa bukhaari iyo muslim ku sugan qofka isdila maalinta qiyaamaha wixii uu isku diluun buu ilaahay ku cadaabaya khaalidan mukhalladan fi nnaar iyadoo naarta lagu waarinayo kii mindi isku dilay calooshuu iska taagaya kii sun cabbay suntii unbuu cabbaya kii meel iska soo riday meeshii unbaa laga soo ridaya marka qadiyadaasina waa siyaabuhu islaamku dadka uga firdhinayo dilka waxaa ka mid a oo qodobka 14 ee qodobadaa ka mid a dilka mukhadaraadka ka yimaada ama qofku haddii uu isticmaalo waxyaabaha maandooriyaha ah iyo balwadaha waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay qof naftiisa dilay waxaanuu isticmaalayaa muddo marka uu wado uu ku dhimanaya waa taa sigaarkii lagugu dul qorayo waa khatar soo ma kambarigii sameeyey bay waajib ku tahay inuu ku dul qoro marka muddo markaad joogto sambabadaa ku madoobaanayo maskaxdaa ku madoobaanayso wadnaha ku madoobaanaya waa lagu sheegayba alqatlu lbatii baa layaa waa dilka wakhtigiisu dheeryahay saa daraaddeed qofka balwadlaha ah ee walafka qaba ee balwadda u soo dhareeriya waxaa loo tixgelinayaa marka cudurradu ay ku dhacaan inuu yahay qof isdilay ila waa loo sheegayba balwadiya waxaa ka mid a dilka camdiga ah ee la diiday dilka markhaati beenaalaha qofku isagoo ka ficil qaadanaya ama la ficiltamaya ama ka aarsanaya ayuu markhaati beena ku furay sidaasaa lagu dilay isagana waa la dilaya waxaa ka mid a qofkiioo sixir wax ku dila isagana waa la dilaya sun buu wax ku dilay waa waxyaabo laga yaaba dadka qaarkood waxaynu usoo qaadanaynaa waxaa laga yaaba inay moodaan inaan arrimahan oo kale aanay dilahayn qofkii qof buu sun ayuu suneeyey iyadana dilkii camdigahaa buu soo gelaya waxaa dilkii ka mida laga yaabo laakiin in mag laga qaado aan qisaas la marinin qatlu tatabub bisababi tatabub tatabubka waxa weeye qofkii oo isdhakhtar gareeya dad aan dhakhtar ahayn ayaa ama cilaaj furanaya ama dhakhtar buu iska dhigaya dhar cad buu inoo soo gashanaya kiniin buu liqsinaya erbad buu ka taagaya ama wax kaleu ku afuufaya sidii bay qaar ku dhimanaya hebel baa xudile oo muxuu ahaa dee imikunbuu bilaabay horeba umaanaan ogeyn inuu dhakhtar ahaa qofkaasi waxaa loo tixgelinaya ilaahay agtiisa dembiiluu noqonaya inkastoo culimmadu u badan yihin inaan la dilayn magtii baa laga qaadaya shibulcamdiga waxaa la mida iyaduna oo qaybaha dilka soo gelaya haddaanu xataa qisaas yeelan mag lagu yeelan karaa
haddaan mag lagu yeelanina aafim iyo dembiilo uu noqonaya qofka dadka ka iibinaya ama u soo waaridaya raashin dhacay iyo dawo dhacday ama wax la isku qurxiyo oo jidhka caddaynaya oo dadka dili kara oo kiimika badan dadka had iyo jeer waxyaabaha baac mushtariga ummadda ka iibiya ee isla kanay faa'iido badani ku jirtaa ee ka gaadhsii iibinaya raashin iyo dawo kansar laga qaadayo kansarku soomaalida aad buu ugu badan yahay waxyaabaha keena waxaa ka mid a dawada dhacday iyo raashinka dhacay waxaa loo tixgelinayaa qofkaasi inuu yahay qof dilaaya oo bulshadiisii dilaya hadday ummaddu iska qaban weydana ilaahay baa ku daba taagan subxaana wa tacaala walaalayaal alqatlu laa yakhfa dilkaa camdigii ma qarsoomo haddaad u haysato intood wax isku hagaajiso ama aad qof mooriso moorintuna halkan ay nagu soo martee islaantii jawaanka ku xidhaye godka daf siisay weligaabaa moori ama qof gadbad ku xidh ama meeshaad doonto mariyo ama sanduuq ku qufulo dilku ma qarsoomo qisada reer banu israa'iil ka akhri qisatulbaqara ee suuratulbaqara loogu magac daray nan yar bay dileen iyagoo shantooduba dil bay ku xukuman yihin ilaa ninka ruuxa dumarkaa waa loo dilayaa siyaabo badan bay sinadu u keentaa dilka waxaa ka mid ah inantii marka ay sinaysatee uur yeelato hareeraha ay ogaysaa shaydaanku wuxuu koray waa adigaa ceeboobay kiina way dilaysaa ilmihii caloosheeda naxariistii hooyadu meeday taqriirka booliska markaad dhegaysato meel walba waxaa lagu leeyahay intaasoo ilmood baa kudaafadda lagu soo tuuray hooyadan ilmaheedii kudaafadday ku tuurtay halkaasuu bahal ku cunaya dadka qaarkoodna dhakhtarro badan bay u marayaan siday ilmo u heli lahaayeen oo loogu beeri lahaa bal hadda nasiib darrada eeg dhacday iyo naxdin la'aantay leedahay sinadu mararka qaarkood baa waxaa dhacda inay isdishaba oo istidaado si aad ceeb uga baxsato suncad mararka qaarkood baa waxaa dhacda in walaalkeedu diluu idhaahdo qatlu sharaf waxa loo yaqaano tanina ceeb bay noo soo jidaysaa balaadu ha naga hadho dabeetana laba dilaba waxaa dhacda mararka qaarkood ruuxa dumare hadday sinaysato oo ninkeedu ogaado inuu iyada dilo ama kii ka sinaysta kow kaga siiyo sooma dhacdo waxaa dhacda mararka qaarkood sino dhacday daraaddeed soomaalideenna waxay idhahdaan markay uur yeelata gabadhu waardee ku qaata waaryaa way naga xumayseen gabadha ku guursada dee ilmaha ku qaata xadiya waxaa kama hadlaan xeer ciqaabadii waxaa kama hadlaane inanta dee ku guursada kuwa galana waxay odhanayaan ma qabno war maahe waa qabtaan oba la dagaalamayba 20 nin baaba ku dhintay sinadaa daraaddeed min asbaabi alqatli alcamd waxaa ka mid a sinada marka yaan la fudaysanin isqaawinta iyo dustuska iyo inamadii iyo wiilash hablaha meelaha isla galaya yaan arrimaha la fudaysanin walaa taqrabu zina sinada ha u dhowaanina buu lahay haddii laakiin la isdhex maro balaayo baas la eelaabaa ka soo bixi waxaa ka mid a dilka ictiqaadkii afkaartu ay keenaan oo qofku intaa hore o dhan waxay ahayd waa dil sababtiisu ay ahayd shahawaad kanina waa dil sababtiisu ay tahay shubha qofkiibaa wuxuu isku qancinayaa qofkan dhiiggiisu inuu xalaal u yahay sidaasuu dabeetana ku dilayaa iyadana ilaahay waa ku daba taagan yahay subxaana wa tacaala waxyaabahaasoo dhan waxay ku soo ururayaan dilka gardarrada ah sababtiisu waxa weeye ama iimaankoo qoonmay qofka ama iimaan la'aan qofku intuu iimaan waafiya leeyahay dil ma geysto nabigaa inoo caddeeyey sala allahu calayh wasalam laa yaqtulu alqaatilu wa huwa mu'min qofka wax dilaa wax ma dilo isagoo iimaan le buu nebigu leeyahay riwaayada bukhaari waxay tilmaamaysaa walaa yaqtulu wa huwa mu'min ka wax cabaya khamriga ma cabo isagoo iimaan leh ka wax xadaya isagoo iimaan leh wax ma xado ka wax dilayaana wax ma dilo isagoo iimaan leh iimaanku waa bireega iyo xajiyaha u weyn ee qofka xumaanta ka celiya waxaynu ku sii caddaynaynaa taa innagu waynu arkaynaa dadka muslimiinta ah dil badan baa dhexdooda ka socda iyaguna way isdilayaan gaaladuna way dilaysa laakiin haddaynu u noqonno daraasadaha laga qoro waddamada gaalada waxaynu arkaynaa dilka camdigaa iyo isdilku inuu aada ugu badan yahay oo dadka muslimiinta ahba uu ka sii badan yahayba waanay sheeginoo balaayadooda ay qarsadaan maalan qaaraddan la yidhaha america latin america iyo nor americaba marka la eego waddanka mexico la yidhaahdo tirakoobkay sameeyeen 2019 waxay leeyihin 35,000 oo qof ayaa waddankaa lagu dilay daroogada iyo balaayadana ku badan marka maalintii waxaa ku soo hagaagaya
95 qof daqiiqadii waxa ku soo hagaagaya hal qof macnaha aan ilaahdo cafwan 15 daqiiqo hal qof baa la dilaabay ka dhiganta waxa ka sii daran Salvador iyada maalintii waxa lagu dilaa 600 oo qof baa lagu dilaa ihsaa'iyaadkay sameeyeen hay'adahooda dambiga dabagala Mareykanka oo kale 2020 daraasadii ay qoreen qolada federaalka ee jaraa'imka iyo dambiyadu waxay leeyihiin dadka ama isdilay ama la dilay waa 25,000 oo qof 25,000 oo qof baa sanadkaa la dilay wali 300 milyan may gaadhin waxa ku beegmaya markaa maalintii 69 qof ayaa kow laga siiya ama iyagu isdila ama la dilaa si kale haddii loo dhigo 100,000 qofba waxa ku soo hagaagaya 9 qof ama 10 qof 100,000 hadday meel ku nool yihiin 9 baa kow laga siinayaa bay ka dhiganta marka halkaa waxaynu ka arkaynaa shayga la yiraahdo iimaan la'aantu waa sababta u weyna dilka keena sidee lagu yarayn karaa dilka waa arrin aynu u baahannahay haddaynu mushkiladii tashkhiisu dawaa adaa qabla dawaa horta waa in cudurka la shaybaaraa kadibna dawada loo baxaa waxa lagu yarayn karaa diinta ilaahay oo la raaco diinta ilaahay oo lagu dhaqmo ilaahay baana inoo sheegay subxaanahu wa tacaala walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab dadka caqliga lahow inaa qisaas samaysaan oo qofka wax dilo la dilo hadda nolol baa idinku sugan baa ilaahay haddii la yidhaahdo taa gaalada inagu soo bidhaansanayo ma kari karayno imika dee waad dillaanaysaa uun dilkaagu baad iska weheshanaysaa markaa in sidaa la isu dilo ay iska socoto ayaad weheshanaysaa dilka had iyo jeer qofka uu wax dili lahaa waxyaabaha ka anfacaya waxaa ka mid ah qisaastaa ka sakow tacliim iyo tadqiif iyo tawciyo dadka la siiyo imika intee oo daliil baynu akhriyaynaa waxaa laga yaabaa intaasoo daliil aynu imika akhriyayna haddaad qorto inaanay 50 daliil ama 40 daliil ka yaraanin ee baabkaasun ka warramaya marka qofka aqoontan leh ee garanaya dilka qofka muslimka ama bani aadamka aba xaaraantu iyo halku gaarsiisan yahay ilaahay agtiisa dee ku dhici maayo ka jaahilka ka ah iyo aqoontan leh isku si uma aha inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa aqoontu waxay keentaa inuu qofku xumaanta ka cabsado shayga la yidhaahdo xuduudda oo maanta aad looga qayliyo aad iyo aad looga warwarayo in la oogo ummadda dhexdeeda qisaasta iyo cuqubaadka kaleba la oogo shareecada la raaco faa'iidooyin badan baa ku jira faa'iidooyinka waxaa ka mid ah takfiiru sayi'aat alxuduudu kawaafir wazawaajir wa kawaafir bay dhaha culimadu xuduudda la oogayaa dembiga ilaahay dadka uu kaga dhaafaa qofka xunna waa ka joogsanaya qofkii xumaanta samayn lahaa wuu ka joogsanaya markuu arka kii ka horreeyey waddada la mariyey faa'iidooyinka waxaa ka mid ah qofkii la dilay ee majniyu calayhiga ahaa iyo kii wax dilay bay cadaalad u tahay oo waa insaafun lilmajniyi calayhi wa idfaa'un ligaydi qofkan madluumka ah iyo kii daalinka ahaa baa loo kala xaq qaaday ma aha in la yidhaahdo wixii xaggaana dabayl ha qaado waxa xaggana daad ha qaado in la yidhaahdo maaha waaya laakiin waa in loo cadaalad sameeya oo aan la ilaawin kii dhintay xuquuqul insaanka ha la ilaaliya bay ka odhanaya oo kan dhintay miyaanu insaanka ahayn ma markii kow laga siiyey buu insaaniyaddii ka baxay waa arrin ayaan darro ah iyo ummaddii isaga ehelkiisa ahayd in cadhadoodu ay halkaa ku hadho wuxuu islaamku diiday waxaa la yidhaahdo alisraa fi lqatl وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا قف لقدله إلهي بأهيلي أودنا والسية تلك يوكو حد قدب كتلكم حون قنكرة وقف كيو إلى هذا أنا كي قد انتي إيا كان صاحر دلي بسوما دقمان سي جاهلية دوران جرين عد كلام الدوانا نينا وانو كقوصنا نينا اسكدا كايقو مدح بوها متعلم بوها كان ينوى ديبجر ku kalaanu ka goosanayna reer hebel yaa laga dilaa xanuunkii Soomaalida hay ama hadiyo jeer qabyaalada waxa kamid ah inuu qofku hadii uu qofkan qisaasanayo ku xadgudba dilkiisa ama ba la yiraahdo laba loo dilayaa qofka sidii dhici jirtay carabta waxaynu soo gudbi lahayn qofka gaalka ah dilkiisu ma banaana in gardarro lagu dilo haddaanu ahayn kii xabadda aynu isku ridaynay ay nala dagaalamayeen
mar hadduu yahay qaybaha loo yaqaano musta'man mucaahad dhimmi magacyadaa leh ee heshiisku inaga dhaxeeya ama maganta inoo ah isagana in la dilo maaha nebiguna wuu ka digay sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahy man qatala nafsan mucaahadan lam yurix raa'ixata aljannati wa ina riixaha la yuujadu min masiirati 40 caaman xadiidkii bukhaari qof aynu isaaminay oo cahdi iyo ballan inaga dhaxaysa dila udgoonka jannada ma helo jannada laga xaaraantinimeeyey waayo karaamadii iyo sharaftii islaamku meel kaga dhacay xataa qof muslimahoo bulshadeenni hadduu magan siiyo magantiisa waa lagu daynaya ajarnaa man ajarti yaa ummahani nebi maxamed ina adeertii umuhani cali walaashii ayaa nin bay magan gelisay maalintii maka la xoreeyey markaasaa cali baa doonay inuu dilo nebigay uga cabatay nebigu markaa wuxuu ku uhi umuhaniyey ninkaad magan siisay annaguna magan baanu siinay hadday dhacdaba qofkaasi inuu dal iyo dad kharibo ama diin kristan faafinaya ama xumaan samaynaya ama hablaheenna kharibayo marka waa in la dacweeyaa waa in dadka la tusaa maamulkuna mas-uuliyad isagay ka saaran tahay waa inuu wax ka qabtaa oo aan ummadda lagu eegin laakiin inuu qof waliba idhaahdo kanaa wax kharibo ka uu kaga siiyo way kala kacaysaa waxaa intaa aynu sii raacin lahayn islaamkeennu wuxuu dhiiriyey alcafwa cinda almaqdira qofkii in la cafiyo wakhtiga aada awood u yeelato qofkii wax kaa dilay kol haddii gacanta laguu soo geliyey waxa islaamku uu dhiiriyey in la iska cafiyo nebiga qisa aynu soo qaadanaya nebiga sala allahu calayh wasalam waa xadiid saxiixo abi daawud ku sugan nin baa loo keenay markaasaa lay ninkani hebel buu dilay u yeedha buu ihi qofkii dhaxalkiisa lahaa war maxaad yeeli miyaad magmaad qaadan maya maad iska cafiyi maya miyaad haddaa dili haa haddaba kaxee orad soo dil oo lagu ilaalinaya isagaa fulinaya halkaa markii uu gaadhay buu haddana u yeedhay wuxuu ihi magmaad qaadan maya maad iska cafiyi maya haddaa miyaad dili haa bal haddaba kaxee markii afraad ayuu ninkii nebigu la hadlay ninkii baa horta hadlay wuxuu ihi rasuul allow dilkaa umaan badheedhin umaan kasin buu ihi marnaba ismaan lahayn dil way igaga dhacday marka rasuulku ninkii uu la hadlayo wuxuu ihi amaa inahu in kaana saadiqa uma qataltahu dakhalta annaar war hadda haddii ninkaasi sidaa uu sheegaya ay dhab tahay oo adiguna sidaa aad ku disho naartaad geli haddaa iska sii daayay buu markaa nebigu wuxuu dhiiri gelinayaa cafiska riwaayo kalea waxay tilmaamaysaa markii afraad ayaa uu nebigu ninkii u yeedho wuxuu ku yihi hadda haddii aad dayso dembigii qofkii idinka dhintay dembigiisii iyo isaga dembigiisaba labada dembiba hadda isagaa qaadaya uu dhiiri gelinayaa nebigu hadduu kayga iga dhintay dembigiisa qaadanayo iskaba daayay buu ha iska socdo riwaayo kale waxay tilmaamaysaa markii uu ka dhaqaaqay ninkii uu kaxaystuu doonaya inuu dilo ayuu nebigu erey ka daba tuuray ereygaasi wuxuu leeyahay amaa inahu in qatalahu kaana milahu amaa inahu in qatalahu kaana milahu waxaa dhaba hadduu dilo inay isku mid yihiin dee isma dhaamaan buu ihi hadduu dilo ninkii baa dhegta loo saaray waxa la hadda ereygaasuu nebigu kaa daba keenay ninkii intuu nebiga ku soo noqday buu ihi dee waa kaasi haddaba meelgee dee iska sii daa buu ninkii xadhig buu ku garbaduubnaayo isagoo xadhiggii jiidanaya ayuu iska tegey magaciisana xadhiglaa loo bixiyey ila waa kan xadhiggii kasii muuqdee markii saa loo eegay baa la arkay isagoo socday oo xadhiggii kasii muuqanaya marka qisadaas waxay dhiiri gelinaysaa qofka kale haddii uu awooddiisii helay in cafisku uu fiican yahay ugu dambayntii islaamkeennu waxa uu ka taagan yahay qofku haddii uu dilkaa gardaradaa geysto alla inaguma sababo inaguma keenee waa balaayo weyne waajibka saarani waxa wey inuu ka toobad keeno xal kale ma jiro waa inuu ka toobad keeno inuu isqariyo maaha inuu firdhado maaha inuu waddanka ka dhoofo maaha laakiin waa inuu isa soo dhiibaa oo uu toobad keenaa albaabka towbadduna wuu furan yahay ibnu cabbaas oo qura ayaa yidhi towbadda laga aqbali maayo qofka gardarro waxu dila isaguna berigii dambe sida riwaayo saxiixii ay sheegayso waxa uu raaciyey in istakfara ilaa an yastakfira laa tawbata liqaatilin ilaa an yastakfir baa ka sugnaatay qofka wax dilaa towbad male hadduu ilaahay dembi dhaaf weydiista mooyaane marka inuu ka soo noqday qowlkii hore ayaa cad towbaddiisu waxay noqonaysa inuu waxaan ka murugoodo horta dembigaa isaga ah inuu ka murugoodo iyo inuu tamkiin sameeyo liawliyaai lmaqtuul qofkan laga dhintay xigtadiisii waa inuu isu dhiibaa u idhaahdo way kan ama stationka iyo goobaha booliska u tagaa
oo idhaahdo way kan haddii la doono ha lay dilo ama mag ha la iga qaado ama ha lay cafiyo waan toobad keenay waxa toobadiisa ka mid ah inuu kafaaro la yimaado oo jumhuurul culamaa waxay qabaan ka camdiga wuxuu dilay in kafaaro lagu leeyahay madhabta shaaficiyadu baa la qofka khata wuxuu dilay ayuun bay kafaaradu ku koobantay laakiin dil kasta inuu kafaaro yeelanayo ayaa waliba ka camdiga ay culimadu u badan yihiin daliiladuna way badan yihiin sheegaya qofka inuu ilaahay toobada ka aqbalayo waxaba ka mid ah xadiidkii saxiix ahaa ee uu nabigu sheegay nin 99 dilay nin suufiyana inuu yimid war toobad ma leedahay waar odayga tag buu xagaa toobadu joogtaa adigana ku raaciyay buu boqol buu ku dhameystiray nin caalima buu yimi wama yaxuulu baynaka wa bayna tawba ninkii caalimka markuu weydiiyay wuxuu adiga iyo toobada yaa idin kala dhaxgalaya toobad baad leedahay ilaahayna waa ka toobad aqbalay subxaanahu wa tacaala qofku marka gardarro lagu dilo saddex xaq baa sugbaya saddex xaq xaqii ilaahay iyo xaqii qaraabada iyo qofkan la dilay xaqiisii xaqii ilaahay waxa weeye in loo toobad keeno ilaahay oo qofkii waxaan uu ka murugooday xaqii qaraabaduna dee waa inay ama qisaastaan ama mag laga bixiyo xaqii qofkan la dilay xaguu maray culimadu waxay leeyihiin aakhiruu fadhiyaa luxudkan ku fadhiyaa soomad arag soomaalidu markay isxujeynayaan waxay dhahaan weligaaba wallaahi luxudkaa ku fadhiyaa luxudku u fadhiyaa bay dhahaan oo waa kaa ku dhegayee la sheegay marka cidi ka furfuri mayso laakiin culimadu waxay leeyihiin dee kol haddii la yidhi toobaddu way furantao gaalkii bay u furan tahay kanna way u furan tahay marka qofkii halkaa kaga horreeyey aakhire uu dilay ilaahay baa ka muslaxaya subxaanahu wa tacaala si ay toobaddu macno u samayso oo ay u hirgasho ilaahay baa ka muslaxaya oo odhanaya hebelow iska cafi marka kol hadduu ilaahay yidhaahdo iska cafina isaguna wuu cafiyi doonaa xaqaa saddexaadna halkaasuu kaga hadhi labadan hore la isku waafaq laakiin xaqaa dambe muran baa ku jira inuu luxudka sii fadhiyo kaasiyo uu kugu dhegayay inuu kaa fuqayo taa muran baa galay siduu masaladaa ibnuqayim aad uga hadlay markaa masalada markuu celcelinayo marka ugu dambayntii dadka ha lagu waaniyo toobad inay ka keenaan oo ay qofkii jariimadaa gala aanu isqarinin isagana la qarinin 20 qodob baan baxfigan aan ka soo ururiyay masaladan dilka ee muslimka iyo Soomaaliduba ay ku fitnaysan yihiin ayaan ka soo ururiyay Allah inagu anfaco waana jariimadaadu iyo aad u weyn in laga fogaado way laga durko ilaahayna ha inaga badbaadiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh